dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dembi la'aanta clearance letter dhammaan ganacsatada iyo hay'adaha gaarka ah ee ka shaqeeya gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida NGO-yada iyo NPO-yada ee magaalada Muqdisho ka shaqeeya ururada aan faa'iido doonka ahayn iyo kuwa u adeega bulshada Soomaaliyeed ee ganacsatada guud ahaanba taas oo qayb ka ah waxa laga qaadi doona waxa la farayaa inay u hoggaansamaan awaamirtan soo socota laga bilaabo 10 Febraayo 2025 waxa shirkadaha iyo ganacsatada NGO-yada iyo MPO-yada la doonayaa inay qaataan warqadda dembi la'aanta CID clearance letter ciidanka booliiska Soomaaliyeed warqadan waxay cadeyn u tahay in ganacsigaasu ama hay'adaasu aysan ku lug lahayn taageerida argagixisada ayna ku jirin maalgelinta argagixisada xogaha la helay iyo sawirada iyo dagaaladii ugu dambeeyay laga helay waxa la hayaa cadeymo ku saabsan in ay kooxaha qawaariidta ay dhaxmarsanayaan ganacsatadu dhaqaalihii iyo wixii laga joojiyay qaab ganacsina ay magaalada u joogaan بالعكس ciidanka booliiska Soomaaliyeed talaabooyinkaas ay u qaadi doonaan sidoo kale taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dembi la'aanta clearance letter talaabooyinkan waxa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iideysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashitooyinka si aysan u maalgelinin falalkooda gurcan taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay ayadoo laga wada shaqeynaya si loo abuuro degnaansho ammaan iyo nabadgelyo ay hesho bulshada Soomaaliyeed in talaabooyinkaas la qaado sidoo kale taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu dhammaan ganacsatada iyo mas'uuliyiinta shirkadaha farayaa inay u hoggaansamaan talaabooyinkaas lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo maalgelinta argagixisada dhammaan waajibaadkan aan kor ku soo xusnay waxa la farayaa shirkadaha iyo ganacsatada hoos ku qoran oo ay ka mid yihiin kuwa aan halkan liiskooda ka tirin doono insha Allah shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay private security companies-ka inay soo diiwaangeliyaan shirkad ahaan ururada aan dawliga ahayn non-government NGOs-ka ayaguna organization-ka inay soo diiwaangeliyaan ururada aan faa'iido doonka ahayn non-profit organization-ka MPO-ga inay soo diiwaangeliyaan shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha dhismaha shirkadaha adeegyada kala duwan shirkadaha caymiska shirkadaha baabuurta iibiya shirkadaha dhoofinta iyo dejinta isbitaalada iyo goobaha caafimaadka nootayooyinka shirkadaha kala duwan ee adeegyada bixiya goobaha warshadaha dahableyda hoteelada shirkadaha maalgelinta microfinance-ga shirkadaha duulimaadka iskaashitooyinka kala duwan shirkadaha kala duwan ee adeegyada la talinta bixiya shirkadaha iibiya guryaha real estate-ska iyo warshadaha yaryar dhammaan ganacsatada kala duwan ee dalka ma ahan barnaamijkan shakhsiyaadka waa qasab shakhsi kasta oo shirkad ka shaqeynaya ama ganacsi ka shaqeynaya inuu haysto warqadda dembi la'aanta hadda waajibaadkan wuxuu fuulayaa ka magac shirkad ahaan in loo soo diiwaan geliyo si looga hortago dhammaan falalka argagixisada ee ku lug yeelato sida la helay xogta aan la wadaagnay kooxaha argagixisada ugu dambeeyay dagaaladii lagu soo qabtayna laga helay informationada ah inay dhaxmarayaan xarumaha ganacsiga digniin taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ugu digayaa hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah in aysan la macaamili karin shirkad aan wadanin warqadda dembi la'aanta inaysan la macaamili karin waxaana bixin doona warqadaas hoggaanka baarista dembiyada ugu dambeyn taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu tallaabo sharci ah ka qaadi doonaa cid kasta oo u hoggaansan weysa amarkan laga bilaabo 10 bisha Febraayo 2025 waana mahadsantiin